xaliimadii ugu taajirsaneyd adduunka oo ninkeedii uu uga cararay baqiilnimo darteed. intaan u gudagelin sheekadan xiisaha badan haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato waxaan ka codsanaynaa in aad nagu soo biirto muuqaal kale aad like noo saarto maasan. Haiti Cree oo u dhalatay dalka Amerika dhalatayna sanadkii 1835 ayaa waxa ay noqotay haweeneydii ugu taajirsaneyd adduunka kadibna geeriyootay iyada oo lacagteeda aan wax badan ka cunin ama aan isticmaalin inteedii badnayd iyada oo waliba baqiilaysa. lacagta haweeneydan loo diiwaan geliyay ee rikoorka ay ku dhigtay ayaa ahayd 2.3 bilyan oo dollar. waxayna aabaheeda oo taajir ahaa ka dhaxashay iyada oo 16 jir ah lacag gaaraysa 7.5 milyan oo dollar. waxay markaasi kadib u soo guurtay magaalada New York ee dalka Amerika iyada oo doonaysay in ay ganacsi cusub ka furato oo lacagteeda ay maalgelin ku samaysato. haweeneydan ayaa la sheegay in ay 16 jirkeedii soo bilowday in ay lacagteeda baqiisho aysan waxba ka cunin. waxaa la sheegay in dharka ay gadato ay ku mintidi jirtay oo ay toli jirtay haddii uu jeexmo iyada aan wax dawaar ah ama xarqaan ah geenin ay gacanteeda ku toli jirtay oo dunay cirbada ay u qaadan jirtay sida ay Soomaalidu taqaano. haweeneydan ayaa markii ay 21 jir ahayd waxa ay guursatay nin ganacsade sideeda oo kala waxayna dhaleen ciyaal iyada oo mid ka mid ah ilmaheedii oo inan ahaa ama wiil ahaa dhaawac lugta ka soo gaaray oo jab ahaa sababay in lugta laga jaro. kadib markii ay haweeneydan taajirada ah laakiin baqiilka ah ay daryeel caafimaad oo lacag la'aan ah ay la raadinaysay wiilkeeda iyada oo awoodi weysay ama ugu naxariisan weyday wiilkeeda ama inankeeda in ay geeso cisbitaal si lugtaasi loo kabo oo uu dib ugu socdo lugihiisa balse ma aysan dhicin oo intii ay la raadinaysay cisbitaal lacag la'aan ah ayaa wiilkii lugta laga jaray ugu dambeyn. waxaa xusid mudan in ninkii ay ilmaha u dhashay hantidana ay isku raaceen oo baqiilnimo darteeda uga cararay. hadda ogow isagana taajir ayuu ahaa iyadana taajirad ay ahayd meeshii ahayd in ay wax isku darsan lahaayeen teedii waxa ay ka baqiishay nafteedii nafta caruurteedii iyo waliba tan ninkeedii iska badaa in ay ninkeedii wax ka siisay iyo caruurteedii nafteedii ay ka baqiishay. sidaas darteeda ninkii ay caruurta u dhashay waa uu ka tagay oo waa ay kala tageen baqiilnimo darteed. haweeneydan ayaa geeriyootay iyada oo 81 jir ah sanadkii 1916 waxayna ku dhimatay magaalada New York ee dalka Amerika. waxaana la sheegay in lacagteedii ay ka isticmaali jirtay inta ay nooleeda maalin walba 2 senti. waxaa lacagteedii dhaxlay qaar ka mid ah ciyaalkeeda mid ka mid ah gabdhihii ay dhashay oo lacagteeda dhaxlay waxa ay sameysay in ay ku furto cisbitaal lacag la'aan ah ama bilaash ah oo ay dadka ka faa'iideystaan dadkaasi oo danyar ah. waxaa haweeneydan loo diiwaan geliyay ama buugga lagu qoro dhacdooyinka dadka mucjisaadka dhiga loogu daray in ay ahayd haweeneydii ugu da'da yareed uguna taajirsanayd taas oo lacagta rikoorkaasi loogu qoray ahayd 2.3 bilyan oo dollar. bal daawada ka waran adiga oo lacag intaasi la ag haysta haddii aad lacagtaada ka aradnaan lahayd oo aad ka dhiman lahayd adiga oo wax badan aadan ka isticmaalin waliba cimrigaasi oo 80 jirka ah oo Ilaahay ku siiyay.